السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وان السلام ملك استعدوك جوكتان غيري أبشر يا باش أياني رجيني يا سومالي وين شير لايك سبسكرايب don't forget Somali people وأنا حسوسيني إن شاء الله دقالكي لكي حاجة وعيس أيوه فرح كفتر الله أكبر وضعنا ياي لما ترين كريه gabdho badbadan faarax kaftan soo kaxaysatay faadamiinana way ku jirtaan u malaynaya faadamiina shalay sotay magla joogtay laki xaji ways sheekada si u socota way yaabe malaan soo dhageysan dumarka haddaa sii eegtid haddaa sii raacday dumarka caruur camal loo dhaqma ilmo camal guruuba mid markay la culowdo tii kale markay la culowdo guruubkii kale isayaacaya tii kale cul markay la noqoto kuwaana isla soo ordaya halkan wii halkan yii ilmo camal horaa loo sheegay dumarka waa caruur lug maxaa la yidhi waa caruur lug weyn ilmo cag weyn weeye caruur ilmo camal marka waa ceeb fanaaniin sidaa u dhaqma waa ceeb iska daba qabta ani waxaan leeyahay isdaba qabta bal wax yaran isla dhageysano anigana waxaan ka falceliyaan aragna insha allah بيقاسكم برهان لهاني كبلا وبريجان واليس برهاي هاي ناليس برتان بلنكو قادي واليس برها بلنواي ما سكر عليشا اتمجوغي ويجنينو ما سكر عليشا ما قررتي oo qoftan waa Faaduma Mine habeen hore sotay la joogtay maaha dhanka sotay la fadhiday maaha laki xaaji ways sheekada si u socota walaalay waaba yaabanahay meelaan dhageysana waxooga ana ka wax aragna fakanayo fagaaraha isku taagan oo inay isku feesteeyaan diyaar isku ah sirqda ii dhigayse aqlaaq sabi waxna sirqda ii dhigayse aqlaaq sabi waxna waay gu soo safaada saadirkay weenaya iga salaamaya le an sirtaada ma soo kor caleesha ad ma joogi weegnino مع السكر على شعري مجوج وين بلاد هاي فمحيد فاطمة مين أنا يا الله بالله كل واحد وصل صفتين ويا بس أنا ده اسمه waxaa la soo dhaweynaya halka ay bood ka soo degtay mar hore bay ahayd many days ago xawakiin mar hore isku dhaceen magaceedii laki xaaji ways mar hore isku dhaceen hadda farxiya tan kaftanka markay isku dhaceen baa faaraxkiintii loo yeedhay waka sheekada waka waa ilmo camal والله وايب هلدا waxaan rabaa inaan wax yar dhageysano magaceedi laki xaaji wayso ka soo hadashay daahir cala soo meeshiisa wax waraysi ula yeeshay aan isla dhageysano daahir cala soo meeshiisa ka soo hadashay waraysi ula yeeshay ninka hadda iminka abwaanka ah heesta ku samaysaysa oro waxay saaxiibo ahaayeen
lahaayeen sida xog ku haya aniga ku dhex jira maya topicaas dhan hadda hana gelin mara iska imaan doontaa waxaa soo wada jawaaba agtaaga kala baxay maya jooji maya waa ku gilayaa gabadha ay saaxiibka ula ahaa oro maya abwaankayga jooji laki xaaji waxay si dhegayso gabadhan ninkaan gabar buu saaxiib la ahaa gabadhii oo saaxiibka lahaa waxay kugu eedaynaysaa in aad ninkaan u gacan gelisay oo adiga aad gacan ku lahayd dhabarjibinta lagu sameeyey oo ninkaas isguursan lahaayeen eedaas meel iska saar laki ma ku lug lahayd mise kuma lug lahayd maya wax aan ku lug lahaa ma jirto arrintaana gadaalay kasoo baxaysaa daahirow xoogaa dib igu dhig arrintan hadda afka aad ku dhufatay iyo jooji adigoo abwaankayga aan jecelaha tahay sheenadaan sheeno kala wa hadda anigu ma raba inaan ka hadlo laakiin mar walbaba I am lucky aniga waxaan ahay lucky xaaji wacays mar walbaba iskama bedelayo naag iska adag baan ahay naag lugta meeshay dhigaysa og baan ahay naag kun naageed isaga filan baan ahay marka waxa weeye qof walbaba lambarkiisa ha xigsadaan leeyahay anigu waxa weeye 3 iyo 4 iyo 5 ilaa 10 laygu tegi maayo qof baanan qof lahayn malaha qof baanan tol lahayn male qof baanan qabiil kasoo jeedin ma jirto marka waxaan leeyahay aniga bini'aadanka isku wada mid ma aha ninkan inaan fanaaniinta aan tuso waa ugu talagalay waana ogaa inuu saan samaynayo inuu duntiisa xuntahaan ogaa inuu qayaanoolu yahay baan ogaa laakiin waxa weeye anuu afan misna aan sameeyey aniga waaya laki ikaadi sheekaan isu keenaya laba sawir oo sidaas hadda iga baxay sheekadaan isu keenaya waxaa ogtahay gabar ayaa jirta fanaanada oo gabdhihii aniga halkaan weliba gabar daahir calasow ah oo gabadhii aan soo saaray aniga ee aan iyadoo halkaa ila degan holan aan heestii ugu horreysay u sameeyey tii labaad u sameeyey tii saddexaad u sameeyey tii afaraad u sameeyey oo liyaa farax kaftan markay London timid waa la ogaa sida u soo dhaweysay ee London aan ugu shiday iminkana khilaafa idinka dhex taagan oo baraha bulshada ayaa su maraysaa dhambaalo aysa dadka qaarkood mataqaanaa jeclaysan ama hadalhayntu ay ugu badan tahay oo maqaayaddu shalay maanta idinka idinsanta sidaa ogaana waxaa la yidhaahdaaba adigu laftada xantaa ma moogide ninkii hadda aad sheegaysay abwaanka gabadhii farxaftan baad ku dartay ha dhamaysatay xalaytaan dhegaystay meeshan ana wax yar aan iga warbixiyo kolay la wada dhegaystay bal ani dhankayga wax yaran ka bixiyo waxay tiri gurigayga lagu aroosay farax kaftanta Holland bay ka timid ingiriiska ay ugu imaatay waa siday sheegayso laki ay sheegayso gurigayga ay imaatay anaa u aroosiyey ninka gabadhaydii baan ka dhigtay madaxa saartay bal aan dhegaysan afkeeda ka dhagaysta Soomaaliyeed daahir calasow horta wax walba dabcan horta adigu waad la socotaa oo maanta in aan shacabka sida adiga aad wax ula socotid bay iyagana ula socdaan waxa weeye gabadhaasi waa soo dhaweeyey wadada ay tahayba waxa weeye anigu qof maxaan ku rahdaa digsigiisa ka hadlana inaan noqdo ma ihi mana aanan u dhalan marka ugu horeyso wax la wada og yahayna weeye inaan soo dhaweeyey laakiin dee qofka bini'aadanka jisaar wuu noqdaa laa mushkila waxaan usoo dhaweynayana dee ilaahay dartiisa unbay ahayd mooyaane ha kuu abaalgudda ma aysan ahayn meesha uu ka guursadayne dee gabadhu waxay ahayd horta gurigayga iyadoo joogta uu ka guursaday bismillaahi raxmaan raxiim heestii baraha bulshada qabsatay ee waa beri ay wada qaadayeen laki xaaji wacays iyo faadumo ama faadumiini hilowle muuma ayaa laga saaray barta youtube-ka markaa ayaa dad bana soo weydiiyeen laki xaaji wacays oo London joogto ayaa qadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey laki hadday maqlayso heestii qabsatay baraha bulshada maxaa helay maxaa ku dhacay السلام عليكم marka ugu horeyso gudoomiye may abwaankii adiga aad leedahay oo aad la jeclaatay adiga oo maxaan ku yiraahdaa muusigii ay tuntaan mase aniga tunamase iyada ay tunto whatever ay tahaybo oo muusigii ii soo dira inaad tiraahdo oo misna ay YouTube aad gashatid horta waa ceeb oo aad mustaqbal dambe aad ka fikirtid haddii lacala la isdagaalo dagaalkana dee waxa weeye mudda la igu soo waday ma aanan ogeyn maxaan ku yiraahdaa tan xigta waxaan ba aniga aan ku faraxsanahay daahir calasow oo shacabkaygaan u sheegayaa oo abwaaniinta iyo fanaaniinta ka qaadan doona heesaha aan u sheegayaa aniga waan ugu talagalay in aan heestan soo saaro anigoo og inuu heesihii horene copyright saas uu ugu xiran jiray qofku hees u sameeyaba
tumiya haddii ayada tumatabo si lagugu tumaan arkay iisoo diruu leeyahay muusigoo qaleel uu ku xiranayaa marka aniga in aan soo shaac bixiyo oo aan tuso ninkan bini aadanka isku wada mid ma aha ninkan inaan fanaaniinta aan tuso waa ugu talagalay waana ogaa inuu saan samaynayo inuu duntiisa xuntahaan ogaa inuu qayaanooloo yahay baan ogaa laakiin waxa weeye anoo afban misna aan sameeyey aniga Hello everyone, welcome to this week's episode of Live. Waya laki kaadi sheeka isu keenaya laba sawir oo sidaas hadda iga baxay sheekada isu keenaya waxa ogtahay gabar ayaa jirta fanaanada oo gabdhii aniga halkaan waliba gabar daahir xalasow ah oo gabadhii aan soo saaray aniga ee aan ayadoo halkaan ila degan Holland aan heestii ugu horreysay u sameeyay tii labaad u sameeyay tii saddexaad u sameeyay tii afraad u sameeyay oo la farax kaftan markay la timid waa la ogaa sida u soo dhaweysay ee London ugu shiday iminkana khilaafa idinka dhex taagan oo baraha bulshada ayaa soo maraysaa dhambaalo tan hadda afka aad ku dhufatay iyo jooji adigoo abwaankayga aan jecelaha aad tahay sheena kala waa weyn aan loo samayn aan u sameeyey ixtiraam iyo sharaf uu iga mudan yahay oo maxaan ku idhahdaa oo ku soo dhaweeyey London aad og tahay adiga aad ku dhufatay horta waxaa wanaagsanayd horta maanta haddii xataa aniga iyada lacalla aan isqabsana lacalla horta maanta inuu noo kala eexdo oo maanta uu YouTube-ka copyright uu maanta uu ku qabsado hees isaga lacagtiisa uusan ku tuman horta waa ka xumaay horta waxay ahayd inuu wixii xaliyo mise uu yidhaahdo tan uu qaba inuu yidhaahdo ka gaabso inta ay noo gashay ayaa ka badan hadday iyada ay garatay xataa aniga hadal khasaaradiisaa ka wadaa laakiin maanta inuu sidii dumar ka liitay ilaan anaa dumar ahay iskuma quuray intuu isku quuray isaga inuu xoogaa ka gaabsaday meesha isaga uu duulaanka uu ka soo qaado YouTube-kayga aniga iyo waa ninka kaftan qaba faarax kaftan ninkeedii waaya ninka ka sheekeynayso oo abwaana oo heeso u sameeyay oo haddana oo kala noqdaan u malayn ninkay ka sheekeynayso aboonka ah faarax kaftan ninkeedi wey gabadha isku dhaceen fanaanada ah ninkeedi weeye de waa ogtihi waa garanaysa inta ogeen baan u sheegaynay iyaay heestana haddii aan magaciisa aan ku qori lahayn xataa hadda waad ujeedaa inuu dagaalku uu ku jiro magaciisa haddaan ku qori lahayn ha dagaalamo laakiin magaciisaan ku qoray heesta oo laxankii baan ku qoray wax aan reebtay ma jirto marka waxa weeye waa wax ay ugu talagaleen laakiin geeda layga calalin maayo anigu lakiyaan ahay gowdhe midna waa ku raacinayaa tii sharma boy iyo adiga waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan horta aad iiga aqbashay in aad baaswarkaas aad igu soo wareejiso oo aad igu tiray lakiyay iga qabo oo dhax sheekadooda unbaa rabay tooda dhankooda hadday dhammaysteen sharma boy tiisa waa baab kale oraan uga hadalnay tan waxaan rabay waxayaa faarax kaftan iyo ninkeedii iyo laki xaaji ayaa is haystaa fanaaniintii maxay ahayd fanaaniintii London baa saa isu haysta saa isu xaxaganaya waana ceeb fanaaniin saa isu haysta ceeb wey bal Mareykan fanaaniin baa jooga waxay haysta arka fanaaniinta ugu badan Canada-na way joogaan inkasta Ingiriiska ugu badan yihiin London Canada fanaaniin badan baa jooga waxay haysto iscunayo arka ceeb weeye dib iskugu noqda jilayaashii baa saa iskugu cunaya London ku filimada jilay ruwaayadaha jilay baa saa isu haysta saa isu xaganaya fanaaniintii baa saa isku haysta saa isku xaganaya dib iskugu noqdo isxaliya waa ceeb weeye dib iskugu noqda waa wada hooyooyin dad waaweyn dhoocelaha ta soo kacayna ma aha waa dad waaweyn waa ceeb social media wax yar khilaaf bidcaada horta bidcaadan baa yahay qasab qalad waa dhacaya qasab wax kasta dhacaya laakiin ha la imaanina social media ha la imaanina idinku social media la imaanin si kale u xaliya fanaaniin mar hadaatiin dee shacabka wanaag bay naga barteen inaan haddana xumaatadiina la arko waa laga fiican yahay Soomaali weyne share like subscribe ka don't forget ha iloobina sida iyo kulanti dambe oo xiiso badan leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh